markale shalay waxay u ahayd Soomaaliya maalin ay jeedisay dooda ku wajahan lahaanshaha dhulka ay Kinya muranka gelisay ee badda waxa si weyn ay qareennada ama garyaqaannada difaacaya Jamhuuriyadda Federaalku soo bandhigeen dhammaan xogaha muhiimka ah ee loo baahnaa dooda ayaa ka adkaatay la soo bandhigay bilowgii maxkamadda ee 2 maalin ka hor waxaana hadal jeedinta badankeedu ay xoogga saaray qaabka ay Soomaaliya u doonayso in xadaynta baddu ay tahay waxay garyaqaannada Soomaaliya ka jawaabeen su'aalo laga weydiiyay arrinta ay sheeganayso Kinya 1 saac iyo 30 daqiiqo ayaa la fadhiyay madasha waxaana doodaha difaaca ee badda Soomaaliya jeeday qareennada kala ah Edward Craven iyo Paul Rickner oo ah horjoogaha kooxda quburada ee sharciga ku difaacaysa badda Soomaaliya waana mid ka mid ah xidigaha maxkamadan marar badan horteeda uga guuleysay dacwooyin uu galay abukaataha hogaaminaya kooxda sharciyaqaannada Soomaaliya waxa uu shalay la horyimid maxkamadda dood culus oo ku wajahan arrimaha ay Kinya sheeganayso waqti badan ayay ka qaadatay sharaxaad uu ka bixiyay xariiqinta ay doonayso Kinya in la leexiyo waxa uu ku dheeraaday sida ay tahay in loo sameeyo isagoo raacay doodii ay jeedisay maalintii ka sii horeysay Professor Alina oo u dhalatay UK isagoo si toos ah u sheegay in Kinya ku jirto walaahow aysan waxba dood iyo sharciga ku haysan sida ka muuqatay khudbadiisa waxa uu maxkamadda la horyimid qareenku cadeymaha muujinaya lahaanshaha dhuleed ee Soomaaliya waxaana qariirada ka muuqda jasiiradaha Raaskambooni iyo jasiirada Kismaayo u dhow oo khadku u maro Soomaaliyana ay leedahay oo waqtigan ay Kinya sheeganayso mar kale waxa uu sharaxay qodobada xeerka qaramada midoobay UNCLOS qodobkiisa 16 waxa uu sheegay in sheegashada Kinya ee soo xigashada heshiiska ay la gashay Tanzania ee xadaynta la xiriiray ee soo qusaynin Soomaaliya ayna marnaba xaaladda Soomaaliya la mid ahayn oo ay ka duwan tahay xaaladda labada dal maadaama aysan qayb saddexaad ka ahayn Soomaaliya heshiiskaasna sharciga qaramada midoobay uu si cad u qeexayo burinta sheekada Kinya. Kenya's principal response to Somalia's case has been to assert that the dispute with Somalia did not crystallize until 2014. As Somalia has already explained, that position is completely wrong and is contradicted extensively by the documentary record. Abukaat Edward oo bilowga hadal jeedintiisa aad uga hadlay nooca ay u taalo Soomaaliya waxa uu masraxa la yimid firfircooni laga dareemay madasha waxa uu dooda ku sii shubay baasin awood galiyeen dhageystayaashu ay dhagaha u taagaan warkiisa waxma kama qaadan in uu sheego in Soomaaliya maanta ay u hartay baddaas way sugaysaa inay ka faa'iideysato kheyraadka ku duugan Kinya waxa uu sheegay inay xadgudub cad ku samaysay biyaha Soomaaliya ee hadda ay sheeganayso ama laga doodayo oo laga baaray shidaal waxa uu sheegay in muddo ay socotay in sharci darro ah ay Kinya u baartay baddaas oo ay maxkamaddu tahay inay qaraar degdeg ka soo saarto waxa uu la yimid cadeymo muujinaya doodiisa qareenku waxa uu sheegay in Kinya xadgudubyadeedu ay tiro dhaafeen oo hadda doonayso inay iska dhaadhiciso lahaanshaha qalfoof qaaradeedka Soomaaliya taasoo uu sheegay inay ka soo horjeedo dhammaan xeerarka qaramada midoobay iyo kuwa dalalka ee madax bannaanidooda damaanad qaadaya doodiisa waxa uu ku kabay qodobada axdiga qaramada midoobay ee badaha gaar ahaan qodobka 77 farqadiisa labaad UNCLOS kaasoo ka hadlaya xuquuqda dawladda ee qalfoof qaaradeedka sida baarista shidaalka iyo cidda ka faa'iideysan karta waxa kale oo uu sii raaciyay sharaxidda qodobka 83 farqadiisa 3 oo sheegaya xadaynta qalfoof qaaradeedka iyo qodobka 84 kuwaasoo awood u siinaya Soomaaliya waxa uu tilmaamay in sharci shidaal baaris oo kaliya la samayn karo marka ay dhacaan oo kale heshiisyadii dhexmaray Greega iyo Turkiga balse Nairobi ayuu sheegay inay iska noqotay dalkii koobaad iyo kii labaad ee isla heshiiyay mid ka mid ah hadallada qaryaqaankan ee saameynta reebay ayaa ahaa inuu muujiyay inay Soomaaliya leedahay badan lagu haysto ayna cadaalad ka sugaysa maxkamadan mudane gudoomiye garsoorayaasha sharafta leh ee maxkamadda Soomaaliya waa dal ka mid ah kuwa dunida ugu faqiirsan waxa ay raasamaal ama ugu dambeyn ka haysataa wax weyn baddaas waxay ka sugayaan maxkamadda sharafta leh cadaalad iyo lahaanshaha dhulkooda oo muranka laga saaro ayuu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa garyaqaankan. My question is addressed to Somalia. Maxamuud Baneen oo ah garsoore ka tirsan maxkamadda ICJ kuna soo jiray 11 sano ee u dambeysay
ayaa Soomaaliya xilligaasi kadib sharciyaqaanadu u doodayeen weydiiyey su'aal u muuqatay kadisa ku wajahan xagga Soomaaliya oo u dhigay heshiisyadii Ingiriiska ama UK iyo Talyaaniga Italy maxadka dhulka oo kaliya ayuu ku koobnaa mise badduna way ku jirtay of the 1927 agreement. So does this agreement of 1927 establish the delimitation line of the territorial sea between the two parties? And if so, what would be the outer limit of this line? waqti dheer kama qaadan Soomaaliya inay cadeeyaan in jawaabtooda ay ku soo gudbinayaan sifaha sharciga ee qoraalka ama jawaabta waarta ee aan isbeddelin oo ah mid galaysa kaydinta nuqulada maxkamadda ama documentiska garsooraha su'aasha weydiiyay xagga Soomaaliya waxa xasuusin mudan inuu ka mid ahaa xubnihii sanadkii 2017 u codeeyay in maxkamaddu ay tahay inaysan dhexgelin kiiska Soomaaliya iyo Kenya loona ogolaado in afgaradka Kenya uu yahay mid sharci ah dhammaadka dacwadda wajiga koobaad ee hadaljeedinta Soomaaliya shalay ayuu soo dhammaaday waxay rajo wanaagsan ka muujisay Soomaaliya doodeeda xagga sharciga ah iyadoo sheegtay inay kalsooni badan ku qabto qareenadeeda iyo garsoorayaasha maxkamadda cadaaladda hadda waxa la sugayaa waa dhinaca maxkamadda waxaana soo baxaya warar tilmaamaya in Kenya ay u gudbisay qoraal ku wajahan inay doonayso Nairobi inay mar kale hadalkeeda jeesato oo madasha ay timaado taas oo ay hore u diiday 15 bishan waxa muuqata in la sugi doono jawaabta maxkamadda ee saacadaha soo wajahan